inkasta oo bandhigyada labisku u muuqdaan kuwa daawashadooda lagu daalo oo aan lahayn shacbiyad badan haddana ujeedada laga leeyahay waa laga gaaraa. Shirkadaha dharku waxa ay dadka ku qanciyaan inay soo saaraan dhar tayo iyo qurux isku darsaday, laakiin muddo yar kadib isla ayaga ayaa ku qanciya dadka in dharkii laga baxay oo uu yahay moodo hore oo aan la jaan qaadi karin dooqa dadweynaha. Mararka qaarkoodna waxay si ku talagal ah u sameeyaan maryo tayadoodu hooseyso si marka ay xumaadaan mar labaad maryo looga iibsado. Waxaa jirta oraah ay ku dhaqmaan oo tidhaahda samee badeecad degdeg u xumaata si aad u hesho macmiil degdeg u soo laabta. haddii aadan ku qanacsanayn maahmaahdan isku day inaad dhegaysato sheekada guluubka aan damin in ka badan 100 sano. اختراع جروبك يشركي لحظة شركات كسلو جوانسو channel انت انا بالعام شاكدا فضلا هو بينا تعوتي سبسكرايب صوبتوا ترى كوبيدا channel كو حيتي الماميان ان كنت يصدح بقولكي بداودياشينو ايسن ولي ركمن channel كا 24 ديسمبر سنة 1924 magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxa kulan ku yeeshay 6 shirkadood ay ugu waaweyn kuwa sameeyay guluubyada iyo laambadaha. Markaas guluubku waxa uu ahaa ikhtirac dunida ku cusub oo qaali ah, dhammaantoodna waxay ahaayeen shirkado Ameerika iyo Yurub laga leeyahay. qaarkood ilaa maanta waa ay shaqeeyaan oo magac weyn ay ku leeyihiin dunida sida shirkadda General Electric, Osram iyo Philips. kulankaasi waxa uu bedelay taariikhda ganacsiga adduunka. shirkan oo loo yaqaan kulanka midowga Philips بدلين habka loo iibgeeyo guluubyada oo kaliya saameyntiisuna waxay gaartay dhammaan badeecadaha dunida la gado oo habka loo gado ayaa isbedel weyn ku yimid. si aan u fahanno ujeedada shirkan, arrimaha laga hadlay iyo go'aanada ka soo baxay, waxaan u baahanahay in aan taariikhda dib u raacno 122 sano. guluubku waa aalad tamarta korontada u bedeshay ilays ama iftiin. 12 saynisyahanaha ayaa jira oo mid walba la sheegay inuu yahay kii ugu horeeyay ee sameeyay guluubka. labada magac ee ugu caansan ee aan filayo in badankiinu aad maqasheen waa Thomas Edison iyo Nikola Tesla, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuusan jirin hal qof oo sheegi kara inuu yahay kii ugu horeeyay ee sameeyay guluubka. dhammaan ikhtiracyada waaweyn inay ifka yimaadaan waxay iska kaashada aqoon-yahano kala dambeeyay oo mid kasta uu heer soo gaarsiiyay aqoonta la xiriirta ikhtiracaas. kan dambe waxa uu ku taagan yahay garbaha kii hore, wuxuuna ka faa'iideystay cilmi baarista iyo tijaabadii uu sameeyay. isagana kuwa ka dambeeya ayaa ka sii wadaya meeshii uu kaga tegay. guluubka haddii aan soo qaadanno laba ka mid ah magacyada saynisyahanada ka soo qayb qaatay sameyntiisa, waxaan dooran karnaa kiimikayste Ingiriis ah oo lagu magacaabo Sir Humphrey Davy oo ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee laabka tijaabooyinka ka shiday ilays uu ka dhaliyay tamar koronto. shakhsiga labaad ee aan soo qaadan karno waa Thomas Edison oo ikhtiracaas u bedelay badeecad ganacsi gal ah oo shirkaduhu ka ganacsadaan dadkuna iibsadaan. tusaalahan marka aan fiirino, Edison waa ganacsade ee maaha shakhsigii ikhtiraacay guluubka. ilayska uu sameeyay Sir Humphrey Davy waxa uu ahaa mid aan daarnaan karin waqti dheer oo dhaqso u damaya. shaqada uu qabtay Edison waa inuu ilayska ka dhigay mid daarnaan karin muddo dheer. Sir Humphrey Davy ilayska uu sameeyay ilada haysatay waxa ay xasawda ama dhagaatiga ifka qaada oo si dhaqso u gubanayay. tira aqoon-yahana oo ka dambeeyay ayaa isku dayay inay horumariyaan hal-abuurka ilayska, mid walba oo ka mid ahna wuxuu ayuu ku kordhinayay. Edison hal-abuurkan waxa uu ku darsaday inuu tijaabiyay 10 maado oo xasaw wanaagsan u noqon kara guluubka. ugu dambeynna waxa uu ku guuleystay inuu helo xasaw wanaagsan oo munaasib ku ah oo ka samaysan cudbi kaarboonaysan carbonate cotton kaas oo shidnaan kara 40 ساعات oo xiriir ah. ugu dambeyn 27 January sanadka 1880 ayuu suuqa soo galiyay guluubkii ugu horeeyay oo iib ah. dabcan waxa soo saaray Thomas Edison. intaas kadib 10 ashqaas iyo shirkadaha ayaa sii hormariyay guluubka. sanadka 1913 shirkadda General Electric ayaa soo saartay guluubkii ugu horeeyay oo ah nooca tungsten bulb, waana nooca ilaa maanta shaqeeya. doonista dadweynuhu waxay jirtaa dhinaca guluubyada, waxaana la bilaabay in laga guuro faynuuska oo markaas ka hor shayga kaliya la ifsado. ilayskuna waxa uu galay dhammaan dhinacyada nolosha, guryaha, goobaha ganacsiga, wadooyinka, baabuurta, mootooyinka iyo maraakiibtaba. meel walbana waxa lagu xiray guluubo la ifsado, waxaana biloomay tartan xoog leh oo ay shirkaduhu u galeen inay sii horumariyaan guluubo qiimo jaban isla markaasna daarnaan kara saacado badan. sidaad la socotaan, tartanku dan uma aha shirkadaha ee waxa uu dan u yahay macaamiisha. haddaba si loo yareeyo khasaaraha shirkadaha guluubyada iyo laambadaha, waxa la abaabulay shir qarsoodi ah oo ka dhacay dalka Switzerland. inta aynan gaarin qodobada ka soo baxay shirka, aan ka sheekaynay guluubka lagu tilmaamo inuu ahaa kan sababay shirka.
guluubka aan damin 100 sano. guluubkan oo loo yaqaano magaca Livermore Lam ama guluubkii qarni jooga ahaa sida ka muuqata magaciisa. guluubkan waxa uu daaran yahay 122 sano. magaca qarni joog ama guluubkii qarniga waxa loo bixiyay sanadka 2001 kadib markii uu buuxsaday 100 sano. sida aan soo sheegnay, guluubkaas waxa la soo saaray sanadka 1901 waxaana samaystay shirkad lagu magacaabo Shelby Electric. sanadkii 2001 waxa loo qabtay xaflad dhalasho oo ku beegan 100 guurada ka soo wareegtay taariikhda la sameeyay. guluubkani wali wuu daaran yahay waxa uuna ku xiran yahay xarunta debdemiska ee magaalada Livermore ee dhacday state-ka California ee cariga Mareykanka. waxaa xusin mudan in markii uu dunida ku faafay internetku loo sameeyay guluubkan camera live looga daawan karo, wuxuuna leeyahay website lagu kaydiyo taariikhdiisa oo lagu magacaabo Centennial Bulb. webkan waxa ku kaydsan taariikhda guluubka, buugaag laga qoray, madax soo booqatay, filim laga sameeyay oo lagu magacaabo The Light Bulb Conspiracy, saacadaha la booqan karo iyo arrimo kale oo badan. linkiga website-ka qaybta hoose ee muuqaalka ayaan idiin soo dhignay, qof walbana wuu fiirin karaa. guluubkan taariikhiga ah wuxuu abuurayaa isweydiin muhiim ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay inuu helo jawaabteeda. haddaba su-aashu waxay tahay, haddii guluubyada aan iibsanno uu cimrigoodu sidaas u fiicnaan lahaa oo ay wada iibsan lahaayeen 5 qof oo isdhalay, shirkadaha sameeya guluubyada ganacsigoodu sooma xirmeen? sidee ayayna u sii jiri karaan marka guri walba lagu xiro guluub aan damayn 100 sano? haddaba si looga jawaabo su-aashan ayaa loo qabtay shirka midowga Phoebus 24 Diseembar sanadkii 1924. shirkaduhu waxay walwal ka qabaan mustaqbalkooda kadib markii uu hoos dhac ku yimaaday iibka shirkadaha. dhibaatada ugu weyni waxay soo food saartay shirkad Jarmal ah oo lagu magacaabo Osram. dembiga keliya ee shirkadani gashay wuxuu ahaa in alaabteedu ay lahayd tayo aad u sarreysa. macmiilka iibsada alaabtooda dib uguma soo laabto sababtoo ah kama xumaanayso alaabta uu ka iibsaday. gudoomiyaha shirkadda Osram waxa uu ahaa shakhsiga iska lahaa fikradda shirka ee isugu yeeray shirkadaha ugu waaweyn ee sameeyay guluubyada. shirkan waxa ka soo baxay in guluubyada loo yeelo cimri ay ku gubtaan oo aan ka badnayn 1000 saacadood. dhammaan shirkaduhuna waxay ballan qaadeen inay qodobkan ilaalin doonaan. go'aankanina waa midka u suurtageliyay in shirkadaha uusan iibkoodu hoos u dhicin. sidoo kale waxaa la isku raacay in ganaax lacageed oo xoogan laga qaado shirkadda u hoggaansami weyda sharcigan oo soo saartay guluub cimrigiisu ka dheer yahay 1000 saacadood. heshiiskan waxaa loogu talagalay in cimrigiisu uu noqdo 30 sano oo ku eeg 15 bisha koowaad ee sanadka 1955. laakiin waxaa soo baxay arrimo badan oo qasbay in shirka la isugu yimaado 5 sano gudahood. talaadadii madoobeyd 29 Oktoobar sanadka 1929 burbur dhaqaale ayaa ku yimid suuqa kala iibsiga saamiyada ee Wall Street, wuxuuna galaaftay dhammaan ganacsiyadii waqtigaas jiray oo qaar badan ay xirmeen. kumanaan dad ah ayaana shaqadooda waayay. maalinta loo yaqaano talaadadii madoobeyd The Great Recession waxa uu ahaa dhaqaale burburkii ugu weynaa ee soo mara taariikhda diiwaangashan ee aadanaha. khubarada oo dhan waxa hor yaalla inay keenaan halkii lagu badbaadin lahaa dhaqaalaha. ugu dambayn, koox isugu jira khubaro iyo dilaalo ganacsi ayaa soo jeeday nidaamka lagu magacaabo gabowga qorshaysan. qorshahani waxa uu shirkadaha u fududaynayaa in mar walba ay helaan macaamiil diyaar u ah inay iibsadaan alaabtooda. jidka loo marayo in la helo macaamiil soo noqnoqota waxa uu ahaa in la soo saaro badeecad leh cimri gaaban oo dhaqso u gabowda kadibna dhimata. qorshahani waxa uu la mid yahay midkii shirkadaha guluubyada, balse magaca oo keliya ayaa u kala duwan. dhaqaale burburka weyn ee dhacay 1929 in laga soo kabto waxay ku qaadatay ku dhawaad 10 sano. muddadaasna qaaradda Yurub waxa ka qarxay dagaalkii labaad ee adduunka. dalka Mareykanka waxa ka bilaabmay dagaal sharci oo la rabo in lagu mamnuuco nidaamka gabowga qorshaysan ee shirkadaha dhigmeertada ay ku dhaqmaan. maadaama uu dagaalka adduunku fiday, Mareykankuna uu qayb ka noqday quwadihii hardamayay dooda sharci ee ku saabsan nidaamka gabowga qorshaysan dib ayaa loo dhigay. 28 sano kadib markii la soo gaaray 1958 ayaa la soo saaray sharci lagu mamnuucayo gabowga qorshaysan. xeerkani ma soo dhaafin waraaqihii uu ku qornaa, mana uusan noqon mid dhaqangal ah. waxa keliya oo shirkadaha lagu qasbay inay badeecadahooda ku qoraan taariikhda soo saarista iyo midda dhicista. midowga Phoebus oo go'aanadooda qarsoodi ahaayeen waxayba awood u yeesheen inayba ku faanaan inay soo saareen guluub shaqeynaya 1000 saacadood. kartoonada ayay dusha uga qoreen, waxaana faafay aragtiyo shirqool oo shirkadahan ku eedeynaya inay iibsadeen dowladdii, garsoorkii iyo baarlamaankii intaba ayna qasab ku hirgeliyeen qodobkii ay 1924 sida qarsoon uga go'aamiyeen Switzerland. haddaba gabagabada muuqaalkeenna, inkastoo ay tiro badan yihiin aragtiyaha shirqool ee aan caddaynta loo ahayn, badankooduna ay ku salaysan yihiin warbixinno aan la xaqiijin
karin laakiin shirqoolka guluubka The Light Bulb Conspiracy oo ay ka dambeeyeen midowga Phoebus markii dambena la baxay magaca gabowga qorshaysan waa mid run ah oo aan la dafiri karin